Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Sweety Assume Cooking. Maanta macmacaan fudud baan ii haynaa. Kusoo dhawaada asxaabey. Meeshan hadda waxaan ku haynaa caano iyo vanilla iyo cornflour waraanga saa u taqaaniin iyo sokor iyo strawberry. Hadda caanihi la soo qaadaa blender lagu shubaa meesha wax lagu shiidaay 3 koob oo caano. haddana strawberry baa ku dhex ridee intaad rabtid qiyaasta rabtid asxaabey. markaasna koob sokor soo qaado ku daray cornflour-gana 2 qaado asxaabey, 2 qaado buux. markaas koobka yariiska oo vanilla. markaasna waa la shiidaa asxaabey. digsi dabka saare waad ku shubay kadibna asxaabey saad u jeedin waa walaaqaysaa ilaa uu ka adkaado asxaabey saa u jeedin markaasa kadibna ilaa uu ka adkaado saa u jeedin jaaga ku shubaysaa suu qandaco. markaas gaasashan ku shubaynaa nus asxaabey. weli waa kulul yahay zaaidna ma u kululo marka ku shubaynaa. markaas asxaabey hadda fridge kan galinaya isku soo laabano. haddana waxaan sii bilaabaynaa kii vanillada. haddana koob sokor ku shubay digsi iyo 3 koob oo caano. iyo 1 qaado yariiska oo vanilla iyo 2 qaado oo cornflour waraangada. kadibna waa isku walaaqaysaa asxaabey. haddana dabka saaraysa digsiga waa qandicinaa asxaabey. markaas waa kana asxaabey glassaska ka soo bixiyay fridge-ka. hadda fruitkan dhex galinaa saad u jeedin jaagiina vanillada way agyaalaa. kadibna jaagi vanillada ku shushuba saad u jeedin asxaabey tartiibko had ku shushube kadibna fridge-ka ayaa galinee. markaasna fridge waa ka soo bixinaa. markaas fruitka ku sharaxay asxaabey saa u jeedin markaas dhammaan asxaabey waad mahadsantihiin inta subscribe like iyo comment ka soo bixiyay. aad iyo aad u mahadsantihiin. sii qarxiya waanay soo wadaa wax ka sii daran. hale subscribe ka hale sii share gareeyay asxaabey. hale soo qarxiyo.